gantaalo nukliyeer iyo bambooyin hydrogen ka samaysan tartan furan iyo awoodo dunida hanjabaad ku haya loolanu kala qaybiyay adduunka oo dhan laba daamood ku soo dhawaada dagaalkii qaboobaa maxaa uu yahay dagaalkii qaboobaa iska horimaad siyaasadeed heerka koowaad iyo mid fikir oo darajada labaad ah oo ka dhex dhacay laba ciidan oo kala duwan mararka qaarna isku adeegsaday ciidamada dawladda ay ka awood badan yihiin waxa uu bilaabmay sanadkii 1947 ilaa uu gaadhay sanadkii 1991 labada awoodood ee dunida ugu taagta badan ayuu ka dhex xaloosnaa kadib jabkii ka soo gaadhay dawladda Jarmalka Naaziga dagaalkii labaad ee adduunka waana dawladaha Mareykanka iyo midowgii Sofiyeetiga natiijada ka dhalatay waxay noqotay in caalamku uu kala jabo laba garab kan koowaad waxa uu ahaa shuuciga uu garwadeen ka ahaa Sofiyeetigu ka kalena waa liberaaliga oo Mareykanku hogaaminayay aan guda galna tafaasiisha barbilowgii khilaafka markii uu qaraaraaday dagaalkii labaad ee adduunka waxa sameysmay awood isbahaysi oo ka dhanahayd ciidamadii naasiyiinta taasoo ku bahoobeen Mareykanka midowgii Sofiyeetiga Faransiiska iyo Ingiriiska shabkii dul hareeyay ciidamada naasiyiinta bishii May sanadkii 1945 waxay horseedeen dagaalku gabagaba ku dhawaado xulafadii dagaalka kula jirtay Hitlerna waxay xaaladoodu noqotay mid aan salka dhigin wali dawladda Mareykanka awoodeeda ciidan meel sare ay maraysaa halka midowgii Sofiyeetigana furfur baaxad weyn ku socdo si uu banaanka u keeno shirki yeelta kalsooni darrada uu Sofiyeetigu u hayo reer galbeedka safgaran waagan dawladuhu waxa uu ka bilaabmay heshiiskii kala qaybsiga waxaana lagu eedeeyay midowgii Sofiyeetiga inuu ka badsanayo qaybta intii la isku waafaqsanaa iyadoo ay taasi jirto haddana waxa Ingiriiska iyo Mareykanku shirki ka bixeen iyagoo ogol balse waxa jirtay cabsi badan oo walwal iyo shaki ku gadaaman yahay intii lagu guda jiray sanadkii 1947 waxa cirka isku sii shareertay walaacay reer galbeedku ka qabaan midowgii Sofiyeetiga oo ka hirgeliyay dawlado shuuciya bariga Yurub waana goobihii gacanta ugu jiray ciidankii casa ee Sofiyeetiga kuwaas ay ka gooneen inay gaarsiiyaan dunida oo dhan shuuciyada si ay u noqoto dagaalkii qaboobaa iyo xoogaysiga hirdankii kala qaybsanaanta Mareykanku dhankiisa waxa uu kaalmooyin u fidiyay Yurubta galbeed isagoo ugu deeqay $12 bilyan taasoo cadaadis laxaad ku abuurtay Sofiyeetiga kuna hagtay dhabadii dagaalkii qaboobaa kala qaybintii gabagabada dagaalkii labaad ee adduunka waxa Berlin loo qaybiyay laba qaybood oo u dhaxeeya midowgii Sofiyeetiga iyo reer galbeedka si uu uga jawaabo Sofiyeetigu kaalmooyinka Mareykankana waxa uu goodoomiyay Berlinta galbeed balse daad gureen xagga cirka ayaa ka dhigtay hawlgalkan mid dhicsoobay taasoo kadib ku qasabtay inuu Sofiyeetigu goodoomintii ka qaado Berlin intii lagu guda jiray muddadaas waxa Mareykanka iyo xulafadiisu ay aasaaseen isbahaysiga waqooyiga Atlantic ee NATO taasoo ay dunidu u arkaysay awood xulafo oo iska cabin karaysa Sofiyeetiga intaa kadib waxa uu midowgii Sofiyeetigu tijaabiyay hubkiisii ugu horreeyay nukliyeerka isagoo jawaab uga dhigaya isbahaysiga reer galbeedka si ay u noqoto mid barbardhac ka dhigaysa awoodaha hub ay haystaan labadan cidhif dalka Shiinaha isna waxa ka dhalatay dawlad shuuci ah halka midowgii Sofiyeetiguna garab siinayay Kuuriyada waqooyi oo shuuci ahayd isla markaana dagaal baan kula jirtay Kuuriyada koonfureed oo Mareykanku taageerayay taasoo noqotay iska horimaadadii ugu horreeyay labadan quwadood inkastoo dagaalka loo adeegsaday dawlado kale oo aanu toos ahayn dagaalku waxa uu soconayay ilaa sanadkii 1953 isla waqtigaas waxa geeriyooday hogaamiyihii Sofiyeetiga Joseph Stalin waxaanay muddadaasi u soo joogtay deganaan ballaaran oo labada dhinac xukunka Sofiyeetigana waxa gacanta u galay Nikita Khrushchev oo ahaa shakhsi u dhibursoon reer galbeedka gudaha aqalka saraakiisha ee Sofiyeetiga waxa laga dareemayaa kala qaybsanaan ballaaran dalka Shiinuhuna waxa uu loolan adag la galay midowgii Sofiyeetiga taasoo horseeday cadaawad iyo kala fogaansho dhexdooda sanadkii 1960 markan labada dawladood ee ugu awoodda badan waxay ka gaadhay inay hub isku diyaarsadaan iyagoo isku ganay gantaalada loo yaqaan balastika oo dib hor le ka huriyay dalalka Kuuba Turkiga iyo sidoo kale bariga dhexe waxaana kaga hadli doonaa muuqaalkeena xiga ee xogaha ku salaysan dagaalkii qaboobaa